kulankan dood cilmiyeedka oo lagu soo bandhigayay isla markaana lagaga doodayay qodobo ay ka mid yihiin nidaamka maaliyadeed ee islaamka, habka loo maareeyo dhibaatooyinka ka dhasha shilalka baabuurta iyadoo la raacayo shareecada islaamka iyo qodobo kale. waxaana dood cilmiyeedkan oo ay soo diyaarisay hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalida ka soo qayb galay culamaa udiin ka kala socday golaha arrimaha islaamka iyo maxkamadda shareecada ee heer deegaan iyo guud ahaan kuwa gobolada deegaanka. furitaankii dood cilmiyeedkan ayaana waxaa si wada jira uga hadlay gudoomiyaha maxkamadda shareecada islaamka ee heer deegaan Sheekh Axmed Maxamed Aadan iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Aadan Axmed. in fatwooyinka aynu soo saarayno ama sheegitaanka waxa cilmiga aynu sheegayno inuu noqdo mid loo wada dhan yahay oo una noqonin mid markii uu sheego midka kale inuu burburiyo. taas weeye ujeedada aan maanta halkan isugu nimid. taas marka in aad ogaataan oo ahmiyadda uu shirkani uu leeyahay aad ogaataan. hay-addan microfinance-ga la yiraahdo ama tamwiilka maalgelinta yar xoolaha muxuu ahaa bangiga ah, taas waxa weeyaan dadaalka ay ku jirtay waa dadaal aad u muuqda way deegaanka oo dhan. qaladaad uu dhici kara iyadana in la saxaa la rabaa, mar walba in la saxaa hadii la yiraahdo taana waa la idinka fadhiyaa oo waa la rabaa. masaa'ilka kalena waxa weeyaan sida hore loogu sheegay jaa'ifada ama nabarka gaadha caloosha gaadha ee hoos u dhaca kadibna uu dhakhtarkii uu ku sameeyo operation ku sameeyo, taana iyadana waxaa jira waxyaabo badan oo la isku garamarsan yahay oo culimadu ninba dhinac u xukumaa jira. in aynu markaa waxyaabaha ninba dhinaca u xukumahaya aynu iska dayno hadii la yiraahdo waxaynu isla qaadano. shilka gaadiidku waxaad ogtihiin waqtigii hore ee fuqahadu joogtay, fuqahadii hore ee kutubta inoo dejisay fiqhiga iyo axaadiistu mid waliba daabad buu cabirayaa. daabadda markaa maanta waa laga soo gudbay wax daabad la yiraahdo oo wax disho oo la fuulaa ma jirto. waxa la fuulaayo waa gaadiidkan weeyaan oo gawaadhidii weeye, dayaaradihii weeye. waxa marka inaynu casrigeenan aynu waafajino oo ahkaamta ka ratimaysa aynu waafajino inaga la inooga baahan yahay. saddexda qodob ee culimadu ay sheegeen saddexdaba waa saddex arrimood oo kulay muhiim ah. arrinta koobaad iyo maadaama bulshadeenu ay tahay 100% islaam, dhibaatooyinka badan ee bulshadeena yacnaha ku yimaadana qayb ay ka tahay. kuwa badan oo kaleeta ayaa jira iyaga laftooda oo aan dhihi lahaa yacnaha daraasaad dhab ay la sameeyo howlaha laftooda sidii xal looga gaari lahaa aan ka midaysnaano. dhankiisa maareeyaha hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Khadar Axmed Cabdi ayaa ka hadlay muhiimadda dood cilmiyeedkan. waxa laga hadli doono marka koowaad horta waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa guud ahaanteen waxaan ka hadli doonaa waa wax bulshadeena deegaanka ee Ilaahay xilka noogu dhiibay danteeda ah oo anfacay. saddexda qodob marka la israaciyo markaana midna gooni loo wax waa ta koowaad in laga hadlo nidaamka maaliyadeed ee islaamka iyo sida macaamilada islaamka ay tahay waxay dan u tahay bulshadeenu waxay cunayso in la ilaaliyo inuu yahay wax nidaamka shareecada islaamka waafaqsan iyo in kale in la isla fahmo oo meelaha qaar kood iyadoo culimadu ay cilmigii wada leeyihiin baa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin khibrad wadaag u noqoto culimadii kala duwanida deegaanka ka kala timidna ay halka fahan midaysan oo deegaankeena dhan lagu maamuli karo oo la isla qaatay uu ka soo bixi doono. qodobka kale ah isaguna shilalka baabuurta waxaa ka taagan iyadana dood badan oo lagu kala duwan yahay sida horeba loo sheegay gobol ama deegaanada qaarkood ay qaab kale u maamulaan. marka maanta inaan iskala qaadano isagana intaan isla qaadaan dhigno oo loo noqdo fiqhul islaami wuxuu ka qabo kabacdi la isla qaato wax bulshadeena dhan deegaanka anfacaya oo midaysan aan ka soo saarnay iyadana waa qodob kale oo aad muhiim u ah bulshada danteedana ka shaqeynaya. dood cilmiyeedkan oo socon doona muddo 4 maalmood ah ayaa waxay ka qaybgalayaashu kaga doodi doonaan qodobada Soomaaliya iyagoo ku saleynaya nidaamka waafaqsan shareecada islaamka si mustaqbalka loogu dhaqmo. Mustafa Yusuf, SRTV, magaalada Goday.